بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان أصحابتيدا صاحبتيدا قالقة أن كوضا سعنا برطان يوتيوب كان كلها يا شكر مستالنتي جنل سو دوادا مركلتو ولي waxaan noo socda taxanihii barnaamijkii taxanaha noo ahaa toddobaadlaha ahaa oo aan rabo inaan ku qaada dhigo qaybtan tii ugu dambeysay oo barnaamijka ay noqoto haddii alla yiraahdo barnaamijkaas oo ciwaankiisa weyn uu ahaa burburka qoysaska Soomaalida waxaan ku soo afjari doonaa kilibkan aan hadda samaynayo oo idin soo gudbinayo waxaan rabaa inaan subtitle-kiisa ciwaan hoosaadkiisa haddii ilaahay yiraahdo aan rabo inaan ka hadlo waa mukhadaraadka ama balwadaha kuwaasoo ayaguna sababa oo ka mid ah waxa koosgareeya oo sababa burburka qoysaska Soomaalida balwadaha markaan leeyahay ulama jeedo balwado kaleeto ulama jeedo waxyaabaha maaragtay dadka gaalada ah oo aan diinta islaamka haysanin ay aalaaba maaragtay caadaysteen sida khamriga sida drugska kaleeto ee waaweyn ulama jeedo laakiin isna waa drugs aan yaraysi gelin waxaan ula jeedaa sunta cagaaran taasoo ah tan maaragtay lagu salladay dadka Soomaalida ah lagu salladay waayo dadka Soomaalida ah suntaas cagaaran ayaan rabaa dhibaatooyinka ay u geysato burburka qoyska qaybta lixaad kale oo ay ka qaadato inaan ka hadlo kaasoo aan rabo inaan ku soo afmeero barnaamijkii weynaa burburka qoysaska Soomaalida waa barnaamijkii ugu dambeeyay oo aan rabo inaan ku soo afjaro haddii alla yiraahdo walaalahayga qaaliga ah saaxiibadayda aan ka wada socono bartan YouTube-ka iyo dhammaan Soomaali weynba waxaan la iska indhasaabi karin oo aan wada ognahay in suntaas cagaaran ee magaca loo yaqaano Soomaali ahaan aan u naqaano ay tahay jaadka in ay burbur xoogan ku hayso qoysaska Soomaalida tani qaas uma aha daljoog qaasna uma aha dibadjoog labadaba sida caamka ahba ragga Soomaaliyeed ayaa ugu badan waxa jaadka cuna ayaga ayaana ka mas'uul ah qoysaska Soomaalida waa ay jiraan gabdho tiro yar oo dumar Soomaaliyeed ah oo jaadka cuna laakiin waa dad aad u yar runtii xaqiiqdii waa dad aad u yar marka la fiiriyo dumar weynaha haween weynaha Soomaalida marka la fiiriyo waa dad aad u yar laakiin caam waxa ah oo boqolkiiba 50 in ka badan la dhihi kara ragga Soomaalida ayaa ugu badan waxa balwada jaadka isticmaala xaqiiqatan balwadaas jaadka dal intii joogtay iyo intii dibad joogtayba dhibaato xoogan ayuu ku hayaa dadka qaasatan dhismaha qoysaska Soomaalida dhibaato xoogan ayuu ku hayaa qofka bini'aadanka ah ama wiilka Soomaaliyeed ee daa'intay balwada jaadka mar walba meel loogu soo hagaaga malaha meel aad ku ogtahay oo dabeecadiisa loogu soo hagaago xaqiiqatan ma jirto waxaan rabaa inaan targetkayga ka dhigto ama aan abaarahayga ka dhigto wiilka Soomaaliyeed ee jaadka cuna waxaan u yeelayaa gabdhaha tirada yar ee jaadka cuna aan u soo hadal qaadaynin ama aan macnaha rabin inaan barnaamijka ku sii balbalaariyo maaha inaan gabdhaha u hiilinayo anigu wiilna waa dhalay gabarna waa dhalay iyo mana kala sokeeyaan labadeeda garbood laakiin waxaan ka hadlayaa waxa ku badan balwada waa ragga qofka mas'uulka ka ah reerka dhisanna waa ninka ragga ah gabadhu si kasta haday u xeeraantay si kasta haday u qayliso ayadu mas'uulka ma aha reerkaas dhismihiisa qayb bay ku leedahay laakiin cidda wax ka furanta waxna ku xiranto waa ninka ragga ah oo direct mas'uuliyadda oo qoyska ay u qabanayso waa asaga marka waxaan rabaa inaan ka yiraahdo wiilka Soomaaliyeed ee balwada leh ee cuna sunta cagaaran ma aha nin dabeecadiisa meel loogu soo hagaagi karo ma aha inaad meel ku ogtahay
ma aha nin aad leedahay noocaasi noocaasa dabeecadiisu tahay maalinba waa cayn toddobaadba waa cayn saacadba waa cayn sanadba waa cayn meel loogu soo hagaaga mala dabeecadiisa waxa sababaya qofka bini aadanka maskaxda ilaahay uu siiyey oo uu ku manaystay uu ugu talagalay inuu ku adeegto adduunya aakhiraba uu ku meel maro oo aakhiradiisana ku shaqaysto adduunyadiisana reerihiisa iyo noloshiisa iyo shaqooyinkiisa adduun uu ku qabsado hadduu iska qaado caqliga ilaahay siiyey hadduu isagu iska qaado melmelo oo wax caqliga ka qaadaya waa maxay balwadi waa inta caqliga kaa qaada ayaa ugu badan waxyaabo kale waa jiraan oo la caadaysto aan caqliga qaadin laakiin ayagana aan u fiicnayn caafimaadka sida tubaakada nooc walba ay ahaato ya laakiinse waxaan la yiraahdo sunta cagaaran waxa ka dhasha wax la yiraahdo mirqaan aslanba mirqaanku waa sida sarqaanka oo kale sarqaanku wuxuu ka dhashaa dadka khamriya cabka ah oo khamriga caba mirqaankana dadka jaadka cuna mirqaan iyo sarqaan wax badan isma dooriyaan labadaba waa maskaxdaadii oo sidii ilaahay u sameeyey ka tagtay oo aad adigu qastay oo duqaysay oo qofku uu yahay haaf uu wax badan fahmaynin sidii caadiga ahayd oo ilaahay qofku u abuuray oo uu maskaxdiisii wax isagu ka bedelay ilaan waxaan asagaa cunay ama cabay adiga markaad maskaxdaada wax yeeshado adigu maskaxdaada wax ka bedasho ma aha wax ilaahay loo maaragtay loogu soo gamban karo allah saan wax ka dhigay ilaahay qof walba wuu dhameeyey maskax taama ayuu siiyey dad yaroo kooban oo aan maxay aheeday wax u dhiman yihiin oo minallaahi uga timid haddii laga reebo ninka ragga ah ee reerka mas-uulka ka ah markuu asagu maskaxdiisa wax bedelaya isticmaalo maalinba xaaladiisu sibay ku sugantaa maalin waa farxaan waa faraxsan yahay wax walbuu samaynayaa qaarkood baa maxay aheeday markay isticmaalaan bahalka cagaaran maxay aheeday reerka dhanba kala hufo oo kala haadiyo oo guryaha xaaqa oo tirtira oo dharka dhaqa xaqiiqa waa wax caam ah oo la wada ogyahay ya oo nadaafadda gurigaba inay ka shaqeeyaan iyo dharka inay dhaqaan kaliya kusoo jeesta mana aha qofku wuxuu jecel yahay ee waa maskaxdiisii uu bedelay wax ay samaynayso qaar baa dabeecad xumo la soo baxa markay jaadka cunaan salaamu calaykum wacalaykum asalaam aadan ku heshiinaynina oo dabeecaddoodu intay adkaato nooc kale u dhaqma oo waxaan jirin maskaxdiisii markay uu qasow isagu qasow sarqaan la iga dhehe oo marqaan iyo sarqaan wax badan isma dooriyaane ayuu wuxuu meesha soo dhiganayaa waxaan meeshaba oolin laga yaaba hadalla hadda ka hor aad istiraheen dib u soo xasuusta maxkamada kuu furantay kooda meeshaas waxaa kaaga bilowday maxkamad waa saarantaa adiga markaad saan yeelaysa maxaad u yeeshay kan maxaad ula jeeday hadalkaas markaad lahayd muxuu ahaa kan muxuu ahaa sometimesna adan wax aad tirada ayna jirin ayuu wuxuu samaynayaa asagu maskaxdiisii wax kasoo alifaya markaasuu ku leeyahay waxaasaad samaysa war waxaas xaggaan ka sameeyey gurigaa basaan u joogay manaa meel dheer aada maba bixinba gurigaba kama bixin maya maadaan saan yeelin dacwad aan meelay ka socotay meelay u socota la aqoonin waa adigu qof waalan oo isagu iswaalay inaad siduu raba hayah u tiraahdid ma ahan lagamana yaabo waxaan ma ahayn inaad soo marsiiso oo habeenkii xaliyaa u tagay ya tan ugu daran waxa waaye qaar baa hinaasa oo masayr meeluu ka socday meel u socday aan la aqoonin markuu jaadka cunan qabta markaasuu dacwad aan dhammaanay halkaan soo fadhiiso intuu yidhaah xaaskiisiiu caawo dhan dacwad meel ay ku dhammaatay meel ay ka bilaabatay aan lahayn uu saaraya maxkamad qaaraa shaki lagu furaa shaki iyo waswaas ya markaasuu maradiisa ka cararaa oo waswaaska adduunka waxaan isaanaya war saan ma ahayn waaba ahaayeenba war waxa maxay ahayn yaa soo garaacay albaabka qofka yimid yow ahay war qof maba la garaacin albaabka maba la garaacin haddii la doono cidba ma imaan waa la soo garaacay saanaa la yeelay kanaa laga dhacay adigu waa qof waalan guri kula noolow
wax aan jirin barnaamij jeebkiisa uu kala soo baxay oo waxaan uu cunay isbeddelka maskaxdiisa ay gaarsiiyeen ay keentay ayuu maxkamad dadka ku saaraa ay ku saaraan wiilasha Soomaaliyeed ragga Soomaaliyeed aakhirka marka ugu dambaysa qofka bini aadanka ah ee qofkan la nool ee maalin walba maxkamad joogto ah loo soo qaadayo oo maalina laga farxinayo maalin waxaad is leedahay wuxuu cunay ma cawskii faraxuu cunay farxadda adduunka halkan soo fariisa aan ku sheekay halkan saanyeel halkan kan ka dhac markaas sheeka nusna run yahay nusna been kadaa'ib meel ay ka socoto jirno maskaxda wixii uu cunay laaqay oo asaga dhan qaso maskaxdiisa furta gadiyay oo maaragtay waxay la noqoto uu ku sheegay wuxuu soo hal abuurayaa been sheeka ah waa kaaga sheekaya way isaga jeedaa inay been yihiin iga jooji kama kartid kaana yeeliba maayo yaa dhibaato fara badan ayaa ka taagan jaadkaas qofkii cuno ninka ragga ah ayuu saas u qasaya uu saas u laaqaya uu saas u wareerinaya uu reerkiisa ku diraya marna jeclaysiinaya marna ka farxinaya marna maaragtay uu nadaafad u diraya marna uu hinaaso ku abuuraya marna uu shaki iyo waxaan jirin meesha u soo dhigaya markaas qir qofkii la noolaa ay asaga ay kala istaagayaan lagaba yaabaa inuu gacan qaado waxaan jirin ugu gacan qaado oo asagoo maskaxdiisa ka samaystay markuu balaayada isku laaqay ya maxaad u malaynaysaa qof dumar oo hooyo ah oo reer dhan hooyo u ah oo tiirkii gurigaas ku dhisnaan lahaa ah oo iduna isa soo laaqdo madaxa iska qastay oo marqaantay maxaad u malaynaysaa waa ka daro dibidhal laakiin waxaa in yar haweenka looga baxsanayaa mataqaanaa ayagan mas-uuliyadda reerka daarigta ugu dhacaynin oo waxay rabaan intay laaqaan waa laga yaabaa inay dagaal abuurto waa laga yaabaa inay rabsho abuurto laakiinse macnaha go-aanka ayada ma laha laakiin ninkan raggaa maalin walba mirqaamaya go-aankan asaga afkiisa ku jira gacantiisa oo mas-uuliyadda reerka asaga uu saaran yahay maxaad u malaynaysaa inuu samayn karo boqolaal qoys kumanaan qoys ayaa ku kala taga waxaan macno lahayn oo jaad abuuray sheekooyin jaadku uu sameeyey guriga jifida ahay aqalkii ka samaysnaay maxaa la dhihi jiray shumaca ee berri markuu waagu baryana dhalaalayay ayaa qoysaska inta isku diro oo maxay ahayday balaayo ka dhex abuuro ayaa lagu kala tagaa si aan ku talagal ahayn marka ilaan waa nin iswaalay oo markuu iswaalo waasho marada tuuray reerkiisa dumiyey berri markuu miir helow leeyahay anigu wax maba ogeynba markaan wax furay ya hadda iyo kow yaa yiri waa furin maba furinba hadduu rabo waa ka dhaaraha been uu ku dhaaraha hadduu rabo markaasaa hadda waxaa jirta fiiri waxaa jira ma ogtahay adigu gacantaada aad isku gelisay laakiin adiga aakhiri adduunba ku dhaawacaya qoysas waxaa jira gabadha iyo wiilku waxay iskula xiran yihiin 3 dalaaqadood qoysas waxaa jira 9 jeer isfura 9 jeerna isku noqda waxa sababayna ay tahay balwadaas waxa laga yaabaa reerku inuu ilmaha inta horena xalaal ku dhalay inta dambana xaraan ay yihiin waayo 3 level isku xiran yahay 9 jeer shima inta la isfur laay 9 dan la isku soo noqon laay waa waxaan jirin dhibaato xoog badan ayaa uu ka abuuray bulshada Soomaalida dhexdeeda jaadku kuwa dibadda joogana waa la mid ma aha kuwa dalka jooga oo kaliya kuwa dibadda joogana waa la mid nin dibadda jooga ee shaqeeya ee reer dhan ku tiirsan yahay ayaa caleen baasoo la soo canyanyuusay ama maaragtay xataa aan kuwan laga helo Afrika ahayn oo maxaa 10 jeer la soo shiido la soo tuma ya oo waxay tahay in jinnu wuxuu ka bixinayaa dabal lacag ah reerkiisa wuxuu ciyaalkiisa siisan lahaa oo reerkaas ku taageeri lahaa ay unta dhuunta dig u yiraahdo ka gooyo oo soo cagaarka ku ruuga qoyskina soo u baahan oo maaragtay ka qadaaya markaas ay luqun isaga xiran yihiin oo waxay iyagu u baahnaayeen habeen walba oo unta cagaar la soo tumay ku ruugo cagaar la soo tumay afka ku shubto waxaas ruugidba ma galaani ya oo lacag dabalana ka bixinaa waana isla quman yahay guriga haduu yimaadana buuqi aan sheegay oo asoo qurba jooga ku bilaaba reerka ya caawar inuu soo qayla markuu yimaado islaantii maanta iska daba gadoomayso reerka guriga iyo wixii uu ku saacidantii aan hore uga soo sheekeeyay oo ku saacidan oo cagaar ruugow jiray oo markuu guriga yimaado
maagaa wax ka day iyadana qaatil bilaa taaganoo gadacad u dhacayda ooba teediba haysataba cid saacidaysa nolosha ku saacidaysana ayna jirin dhaqaalaha iyadu u baahneedna cagaar lagu cunaayo fiifii'a dhexdooda waa ka tafanay dhexdoodaa fiifii ka dhacaysa kala qabtay kala jiida yaa qoyskaas hadduu dumo yaa ka mas-uula dumistaas sunta cagaarana ka mas-uula iyo ninkii soo dhamay suntaas oo soo ruugay ya kuwa dalka joogana waa kadaalig waa la mid balaayadaasaa la isku soo dhacdhabaa maskaxdaa lasoo qasaa beriba nin bedelan ninkaan maba bari kartidba adig dharaarba waa cayn habeenba waa cayn a kuu imaanaya ilmihiiyounan wixii reerka dhaqaalihiisayna u roonayn oo waxaan uu cagaarka ku ruugayo oo aan daruuriga ahayn oon loo baahnayn oo maskaxdiisa uu ku duqaynayo reerkaana u baahan siyaalo kale oo kala duwan ugu baahan yahay caafimaad ahaan ugu baahan yahay maxayda dhaqaale ahaan ugu baahan yahay biil ahaan ugu baahan yahay marash ahaan ugu baahan yahay masruuf ahaan ugu baahan yahay awlaadiisa u baahan iskuulada ugu baahan yihiin hadduu sadaqaystay aakhiro uga horeysa ya oo sadaqadii wadii geeri furatay u noqonaysaa laakiin intaba yeeli maayo balaayo isku soo dhacdhabaa cidaana dhibo ugu filan yahay mujtamacu la nool yahay oo dhanna dhibo ugu filan yahay oo waa qof xayraana oo marow sarqaansan yahay marqaansan yahay aan iraahday marqaansan yahay oo indhaha taagayo wax kastaba wuxuu raba asaga say la yihiin ma ahine si kale uuna kaa yeelaynin iyo marow duuduuban yahow jiifo waayo uunan farna taagi karin far garaartaba lahayn shaqadina aadaynin uu ka habsaamaayo marka walaalayaalow suntaas cagaaran dhibaato fara badan oo aan hal barnaamij iyo 2 iyo 3 iyo 4 midna lagu soo koobi karin ayay ku haysaa bulshada Soomaalida dhexdeeda dhaqaale ciidaas ka badanna Soomaalidu way uga baxaan oo hadday dhinac kale u jeeysan lahaayeen intay kanaalo waaweyn ku jeexdaan beero ku fashaan ay horumari lahaayeen ama intay ganacsi ku samaystaan maaragtay maasha Allah gacantooda midigtooda ka dhunkan lahaayeen ama awlaadooda waxbarashada inta waxbarasho iyo wax loogu abuuro iyo kuwa shaqada la'aba ay shaqooyin ku heli lahaayeen shaqo abuur inta loogu sameeyo maalin walba waxa la siiyaa Kenyaan iyo Afrikaan wax dan hoo noogu jira ayna jirin iyo wax macna lahoon uga bedelano hoog iyo ba iyo dagaal iyo sarqaan iyo maaragtay qaraar iyo xayraan aan uga bedelanaa wax kale ku bedelano iyo wax macna ah uu samaynayo dal iyo dibad cidi joogtaba uu sameeyay ba halkaas ma jiraan inuu lug iyo laba ka gooyo maahay waxa kaaga daran caafimaadkoodu u daran yahay waxa xaqiiqaho anigu aan hubsaday oo aan la igaga sheekaynaynin 20 sano ka badan qofka bini aadanka haduu muqayil yahay 20 sano haduu ku gaaro jaad cunis for example nin baa soo 20 jir jaad cunis bilaabay 40 sano u gaaray ama 40 kibaaba wax yar ula jirsadeen mentally ma fiyoba maskaxiyan xaqiiqa waxba u dhinmaya qofka mana waalna mana fiyoba waalida dhaqanto oo kamid noqonaya maskaxiyan ma fiyobanaya ka yaabin waa wixii carabtu shuwayada dhihi jirto noqona ma fahamtay caafimaadkan uma roon ilkaho dhan waa ka baabi'iha hal qof jaad cuno ilkiisu wada cadcad yihiin amay ugu wada yaalaan sidoodii sidii abartiis u dhashay ay ugu soo baxeen wallahi inaadan arkayn artificial la wada gashan yahay ilaahay oo ku qabanin iyagu isku qabteen ya ilkahiyo iyo wixii noonto bulunbulyo galiyo madoobeeyo gabal rido gabal kala nus ka gooyo falxumahaas la soo wada taaga gana wada ibra markaas wadan isleeyahay ilkahan iska qari maaragtay wax soo gasho soo wadana ilka kala kaan oo ilka faras aad u qabto waa weyn kaliya soo ka dambeeraad oo balays la soo gelina ya waa falxumo waa dhaqaale xumo waa caafimaad darro waa qoysas burburay meel haba yaraatee oo baaceero ku leeyahay suntaas cagaarani haba yaraatee ma jirto Soomaali maxamedey inaan go'aan ka qaadano oo shirweyne Soomaalidu inta isugu timaado bahalkaas go'aan laga qaato Allah nagu duwo khasaare ma hay khayr marna Soomaalidu uma horseedin dhan kasta ka fiiri caafimaadka ka fiiri dhaqaalaha ka fiiri reeraha iyo nagaashahooda iyo deganaashahooda ka fiiri war meel uu maaragtay haba yaraatee uu ka soo dhow yahay malaha barnaamijku ma rabo inuu la sii tago intaasaan rabaa barnaamijkii weynaa ee burburka qoysaska Soomaalida inaan kilibkan ku soo afjaro hadii Ilaahay yiraahdo arrimo kale oo bulshada kooda ah ayaan ka hadli doonaa barnaamijyada dambe
باذن الله كريم سومالي محمد maxaan isku ognahay warsuntaas cagaarna laga hortago war ilma adeerayaalow bahalkaas meel uu ku fiican yahay lama arkee reeraha naga dumiyay laga hortago dadka ilkaha inta ka dumiyay gana waaweyn loo soo sursuro gana dameeraad aad u qabto yaa oo dhaqaalihii dhulka la galay aan ka hortagno biidnillaahi kariim soomaaliyay tasho soomaaliyay tasho aayahaaga ka tasho waqtigaaga ku xisaabtan dhaqaalahaaga ku xisaabtan wax walba intaan lagu xisaabtan adduunyo aakhiro barnaamijkayga halkaasaan kusoo afmeeri doona aan kusoo jarayaa tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida aan ku kulmi doono wixii saacidaad ah oo channelku u baahan yahay waa idinka xaggiina subscribe-ka please hala soo badiyo inta ila joogto waaba nala joogtaa inta aan nala jooginna insha allah nagu soo darsami doontana waxaan idin leeyahay weji furan iyo gacmo furan kusoo dhawaada walaalo qaali haatihiin agteedana qiimo fara badan aad ka leedihiin asxaabay tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabaadiino iyo nooli kulante nabad iyo caano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh